waxa kale oo yiri halkan uga faa'iideysanaya arday foorada sanadkan imtixaanka gelaysa waa ardaydu waa laga yaabaa inay yiraahdaan sanad walba xafiiska imtixaanaadku wuxuu yiraahdaa form 1 iyo form 2 iyo form 3 waxbaan ka bedelay haddana sidii hore ku timaada waa isparallel manhajku biology-ga buuga form 1 iyo ka form 2 iyo ka form 3 iyo ka form 4 ku xiriir baa ka dhaxeeya ma aha micnaha hadii lagu dhaafo form 4 baa lagaaga qaadaya micnaheega kuwadsa form 1 ku jiray ama su'aal ku jirtay form 1 ka iman kari lahayd form 1 kana way ka form 4 kana way ka iman kartaa laakiin waxa laga hadlayaa kuwa seriska ku imanaya majority-goodu waxay noqonayaan form 4 laakiin waxa laga yaabaa su'aasha form 4 lagaaga keenaya tulamid inay form 1 ku jirto marka adeer waxa weey ujeedada laga leeyahay ardayo ha khalkhalin waxa weey su'aasha form 1 kaaga iman kartaa form 4 kana way kaaga iman kartaa waxaad ogaataa waxaan waa isparallel sida laf dhabarta ayuu taxayahay oo waxa weey kulba isagoo in detail sii gelaysa form 4 uu ugu adag yahay uu ugu ballaaran yahay marka sanadka waxaan culayska saarnay inaynu 70% ardayda su'aalaha badidooda ka keeno form 4 marka form 1 su'aal 10% wax kaaga imanaya form 1 10% form 2 10% form 3 teedigaas halkaas kaaga imanaya marka yeena kula weynaan xabada form 2 kaaga timaada ama form 3 hadaad garan weydo kuwa adkaato maaha imtixaanka in been lagu sheegayo form 2 iyo form 3 wax laga keenay maaha 70 form 4 ka lagaaga keenay uu ku yaalaan imtixaanka u diyaar garooba culays kana saara form 4 soo jeedintiini baanu qaadanay form 3 gila haydan koofurkii baayo waxban maanu dhigan baad badidiinu ku doodeysay waanu idin tixgelinay marka waxa weeye imikana waa idin tixgelinaya sanadkan laakiin imtixaanku ma aha sidii kii hore sidii caadiga ahayd baa loo gelaya waa imtixaankii caadiga ah waqtigiisa caadiga ah buu dhacaya 12 maada sidii baa loo gelaya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu waxaan inaga dul qaado ilaahay idankiina waan rajaynayaa inuu ramadaanta bayna la gaadhin inuu ilaahay naxariis ducada ramadaanta iyo raxmadda naxariista ilaahay inuu dalkaba barwaaqadii iyo caafimaad bay ilaahay nagu kulmiyaa rajaynaynaa niyadana hal hagaajiyo Somaliland waxa loo baahan yahay lagu yaqaan iscafiskeena han iscafino ardayda Somaliland waxaan runtii u rajaynayaa sanadka maanta guul iyo gudub fiican iyo aqoon wanaagsan idinkana dadaal midna waa kala dardaarmaya ardayda Somaliland war eegasho waxba ma tarto war markaa iga gunta war wallahi suma wallahi inaan waxba tarin waxana shaqaysan oo ama qeyrka ku shaqeeya ama saaxiibka ku shaqeeyay ama meel lagaaga soo diray adeero aqoon noqon mayso aqoontu inta yar ee taqaano ee adigu dhiidaad adigu keento ayaa ka qiimo badan ee lagu soo shaqeeyay way dhiidaada meel kasta waa kaga wixii intii dhiid ee taqaano meel walba waa kaga hawlgeli kartaa laakiin anad garanayn meel kaga hawlgeli kari maysid marka adeer waxaan kula talinayaa aad waxaan ka codsanayaa imtixaanku sidaad moodeysaan maaha imtixaanku waa sidii miskiini waa waxa dhigateen akhrisku badiya waliba form 4 kaliya la idin ka dhigay ina imtixaankiina iska kansal gareynina mar haddii aanu jilcinay imtixaankii aw soo koobmay waxa weey la idin ka dul qaadan maayo eegashadii la idin ka yeeli maayo eegashada ay naga daay oo moobilada ay naga daay kun moobil baanu haynaa sanad walba moobilada la ururinaya halka ku bal waxa la wax faa'iido naga nooliyeen ma jirto idinkana way khasaare idin ku jirta ayr inaga daay waxaas waxa weey tacliinteenu baabiinaya intaas baanu idinka codsanaya idinkana codsiyadiina waa idinka yeel inuu si degan imtixaan fiican oo idin raali geliya la idinka qaadaya anagoo duruuf walba eegayna idinkuna eegashadan daaya waliba sanadka waxaan ku dadaali doonaa inaanu macallimiinta istaafina haduu ilaahay yiraahdo balse aynu ula dagaalano oo macallin walba gobol walba macallimiintooda ka bedelo oo macallimiinta kala geeyno marka hadda waxaan idin rajaynayaa guul iyo caafimaad iyo nabad qab iyo farxad baan idin rajaynayaa waxa weey imtixaankuna waa waqtigiisa caadiga bisha June jadwalkii waa idin ku dhagan yahay buugtaan idin qaybinayso arfayskii ku dhagan yahay maalintan anaga idin sheegi doona haduu ilaahay yiraahdo marka bisha June buu noqonayaa challenge fiican baad haysataan bisha Ramadaantana cibaadada iyo wax akhriska isdhax wada إلهينا بريا إلهي اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهل فسهل أمورنا في الدنيا والآخرة خاصة على الامتحانات العامة دعيسته مركا وحوي عبادة مركا وحوي دلالك تاسع ضلك يضدك يدين تبو احترسات أين سمينه أنه مر أول بول من حريسين سيدني إمي كان حريسته ونصيب بديننا إذا كان واحد يكرمنا أخلاق في عن هي علم وناكسن هي الدلال وناكسن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.